waxaa jiray nin aad u qalbi wanaagsanaa wuxuuna u saaxiib ahaa akhlaaq wanaagsan taasi oo dadkoo dhan uu kula dhaqmi jiray gaar ahaan shaqaalaha ay wada shaqeeyaan iyo dhammaan dadka masaakiinta ah wuxuu ahaa mid ku booqda isbitaalada dadka xanuunsanaya isagoo ku camalfalaya xadiiskii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa axabbu nnaasi ilallaahi anfacahum linnaas oo micnaheedu yahay ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka anfaca wuxuu ahaa ninkani mid raadinayay shaqo cusub wuxuuna si niyad leh ku weydiistay allaah inuu u sahlo shaqo ducadiisana allaah wuu ka aqbalay wuxuuna shaqo ka helay warshad lagu qaboojin jiray malaayga ninkii isbuuc markii uu shaqaynayey waxaa si dulmile ku eedeeyey ninka ilaaliyaha ka ah warshadda wuxuuna ku eedeeyey inuu dhumiyey lacagtii ay warshaddu shaqaynaysay muddo 1 sano ah markii uu ogaaday maamulkii warshadda arrintaasi xaqiiqadeeda wuxuu go'aansaday inuu ciqaabo ninkii ilaaliyaha ka ahaa warshadda ee sida beentaa u soo eedeeyey ninkii kale shaqaalaha ahaa laakiinse ninkii wanaagsanaa wuu iska cafiyey wuxuuna ka dalbaday maamulka inuusan ciqaabin maalmaha ka mid ah markii ay qaar ka mid ah shaqaalaha baxeen kadib ninkii wanaagsanaa wuxuu galay qolka lagu qaboojiyo malaayga si uu u dhammaystirto shaqadiisa qabyada ka ahayd ninkii waxaa ku xirmay albaabkii isaga oo ku jira gudaha wuxuuna ka shakiyey inuu u dhimanayo qabowgan daran awgiisa wuxuu bilaabay inuu qayliyo misna uu albaabka aad u garaaco saacado kadib waxaa ka furay albaabka ninkii ilaalinayay warshadda wuxuuna arkay ninkii oo yaala dhulka wuxuuna sabab u noqday inuu badbaadiyo maamulkii warshadda wuxuu weydiiyey ninkii ilaaliyaha ahaa sida uu ku ogaaday in qolka lagu qaboojiyo malaayga uu ku jiray nin wuxuu yidhi ninkii ilaaliyaha ahaa aniga waxaan halkani ka shaqaynayaa muddo 3 sano ah shaqaalahan hal qof kama ogaan karo joogitaankiisa iyo maqnaanshihiisa balse ninkani wanaagsan wuxuu ahaa mid markuu imaanayo shaqada albaabka igu soo salaamo gacantana iga dhunkada marka uu baxayana igu macsalaameeya dhoola cadayntiisa quruxda badan wuxuuna isii su'aali jiray xaalka qoyskayga markii uu ii cafiyey qaladkii aan ka galayna waxaan u qaaday jacayl mar walboon arkana aad ayaan ugu dhoola caddayn jiray maantana markii ay ahayd wakhtigii uu soo bixi jiray waan sugay si uu ii macsalaameeyo sidii caadada ahaydba balse muusan soo bixin markaana waxaan bilaabay inaan ka raadiyo warshadda dhexdeeda ilaa uu markii dambe qalbigayga ii sheegay inaan ka soo eego qolka lagu qaboojiyo malaayga markii aan furay albaabka kadib waxaan eegay isagoo u dhaxeeya nolol iyo geeri waxaana u degdegay inaan badbaadiyo wuxuu qalbigayga ku furtay wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa qurxoon anigana waan ku faraxsanahay inuu allaah i waafajiyey inaan u sameeyo wanaag alla weyne wuxuu yidhi ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم